waa maalin kale oo ciidanka difaaca dawladda Puntland ay guulo waaweyn ka gaareen firxadka argagixisada tamarta yar ee Daacish kuwaas oo ku dhuumaalaysanaya meelo ka mid ah buuraleyda Calmiskaad. ciidamadu waxay ku guuleysteen inay burburiyaan sidoo kalena ay la wareegaan ilaa 5 talis oo ka mid ah meelaha kooxda Daacish ka soo abaabuli jirtay sharka iyo dhagarta ay la maagan tahay shacabweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Puntland waana kuwii ugu waaweynaa oo ay ku lahaayeen buuraleyda Calmiskaad. saldhigyada kooxda Daacish ee halyeeyada ciidanka difaaca Puntland ay burburiyeen waxaa ka mid ah taliska Ceelileed, taliska Aldacwa, taliska Dibqallooc iyo taliska dugsiga tababarka kuwaas oo ku teedsan godadka Ceelileed iyo Hadiya. sidoo kale ciidamadu inta howlgalkan ku gada jireen waxay fashiliyeen oo qarxiyeen qaarna saareen in ka badan 8 miino oo ay argagixisadu damacsaneed inay dhibaato ku geystaan, balse ciidamada difaaca Puntland waa kuwa markasta u dhiifoon oo ka feejigan isku day walba oo ay sameeyaan cadowga nafalcaariga ah ee gobolkooda dumay. in ka badan 50 kiiloomitir ayay ciidamadu ka fuliyeen gulufyo jiho walba ah waxayna gacanta mariyeen oo burburiyeen fadhiisimo talisyo